dagaalka ka sii soconaya dalka Itoobiya ayaa madaxa la sii galaya toddobaadka saddexaad iyadoo ilaa iyo haatan aysan socon wax waana xisbiga barwaaqo ee hogaamiya dalka Itoobiya ayaa sheegay in aysan marnaba wax wada hadal la galin kooxaha ay ugu yeereen qaswadayaasha. dhinaca kale Cornel Dijane oo hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu guulo ka sheegtay dagaaladii maanta dhacay. warar caawa naga soo gaaraya caasimadda Maqale ee gobolka Tigreega ee dagaalada xooggan ay ka socdaan ayaa waxay sheegayaan in kooxda Tigreegu ay yeelatay shir albaabada u xirnaayeen walow aan ilaa iyo haatan xog rasmi ah laga hayn shirkaasi. dagaalada tan ayaa sidoo kaleeto waxaa midowga Afrika ay dadaal badan gelinayaan sidii dagaalada ay u soo afjari lahaayeen. docda kaleeto wadahadaladii Niilka ee ku aadanaa biyo-xiroonka Abay ee Itoobiya dhisanayso ayaa hakad galay maanta iyadoo lagu waday in ay maanta furmaan. wadahadaladaas ayaa Suudaan ay Itoobiya barashar ku saaraysaa in dhinaca midowga Afrika qayb laga siiyo. qaxooti fara badan ayaa ku sii hayaamaya dalka Suudaan oo daris la ah dalka ay gobolka ay dagaalada badan ka socdaan ee waqooyiga dalka Itoobiya iyadoo ilaa iyo haatan aysan muuqan wax waana oo dagaalkaasi laga galayo.